ahayd kunbaa ku soo dhowray kumaan baadham kuu jeclaa kunbaa dhaawucuu soo gaaray dhalashada hawlintoo dhulgalaayo xabaal ku dhacay kunbaa dhaawucuu soo gaaray dhalashada kunbaa necab dheeligaagoo dhidbaha u xiray haddaan cabdulaahi u dhaadiidan lama dhiseen waxaa xalay si weyn looga xusay degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii dawladda Puntland dhibada loo taagay sanadii 1998 munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday degmada Buurtinle waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada dhalinyaro haween nabadoono iyo xubno ka tirsan aasaasiyaashii dawladda Puntland oo horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay Gooba Dhaashane iyo Muxuudiin Maxamed Xaashi Dheeweyne oo ka mid ah ergadii aasaastay dawladda Puntland waxayna ka sheekeeyeen aasaaskii dawladda Puntland isla bishaas maarso soddonkeediibaa Abshir Muuse Siciid ilaahay jannada ha ka waraabiyo oo galihii SSDF oo markaas dalka joogay ahaa gudaha wuxuu kaga dhawaaqay shiray yeesheen maxay ku yeesheen magaalada Boosaaso oo isimadii markaas jiradan qiyaasay inay 12 sano ahaayeen ay ugu yeereen bay waxay uga dhawaaqeen in la dhisayo maamulka Puntland Abshir Muuse Siciid oo markaas gudoomiyihii ahaa ku meel gaarka ahaa ee maxalliga SSDF iyo galihiisiiba ku dhawaaqay shir wada tashina waxay ku cilaamiyeen in garawal isugu yimaado taariikhda markaan u joognay 20 sano ka hor Puntland waxay taagneyd meesha hadda ay joogto meel ka liidata maamul iyo kala dambeyn iyo nidaam midna kama jirin Puntland horteed waxa ka jiray maamul dekadu ay leedahay iyo mid difaac uu leeyahay laakiin maamul isku xiran oo kala amar qaata ma jirin gobol walba gaarkiisu isu maamuli jiray Puntland markii la aasaasay oo madax loo sameeyay madaxdii waxay ku dhaqaaqeen inay Puntland dhisaan Soomaaliya raadiyaan dhanka kale nabadoon Maxamed Cabdikuus iyo Marwo Caasho Geele Maxamed gudoomiyaha ururka haweenka degmada Buurtinle ayaa si wada jir ah uga hadlay munaasabadan una duceeyay isimada iyo madaxdii aasaastay dawladda Puntland kaliya waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo marka u horeysa aan u duceeyno intii dhimatay isimo iyo siyaasiyiin ee hawshaas u quntay ee soo aasaastay ee maanta in soo gaarsiisay 20 sano guuradii ka soo wareegtay kulligood waxaan leenahay Ilaahay u raxmeeyo intii dhimatay waxaynu garanaynaa meeshii laga bilaabay oo siir ahayd iyo maanta oo xitaa federaal iyo dawladihii kaleba inuu ka horeyno maamul goboleedyada ahaa marka taas waa mahad Ilaahay waxaanu jecelahay in Ilaahay wixii naga dhiman noo kaabo horeyna u sii socono dadaalkeena aanu sii muujino geesta kale Jaamac Ashkar Cabdille gudoomiyaha dhalinyarada guusha Soora ayaa ugu hambalyeeyay dhammaan ummadda reer Puntland sanad guurada 20aad iyo marka la gaaray waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo dhammaan dadweynaha reer Puntland horumarka la taaban karo ee 20 sano 20 sano dekad iyo aeroboorra 20 sano oo waxbarasho iyo caafimaad ah 20 sano iyo oo amni iyo nolol aad u degan ah ayaa rabaa inaan munaasabadan ugu hambalyeeyo dadweynaha reer Puntland ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Buurtinle Maxamed Axmed oo munaasabadan soo afmeeray ayaa hambalyo u diray madaxda ugu sareysa dawladda Puntland iyo shacabka reer Puntland waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan dawladda Puntland meel kasta ay joogto madaxdeedu ugu horeeyay madaxweynaha dawladda Puntland waxaynu la wadaagaynaa sanad guurada 20aad ee aasaaskii Puntland marka waa 20 jirsatay awoodeeda iyo dhaqaalaheeda iyo horumarkeedana waxa weeye waxay maanta la mid tahay wiil 20 jira miyaa la loodin karaa Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle